dib loo raaci karo. That's a long track record. Ma jirto dib u noqosho. There is no going back. Mana jirayso in dib loola midoobo Soomaaliya. There is no reunion with Somalia. Waxaan u baahannahay wada xaajood aan ku abuurayno jaarnimo wanaagsan. Dialogue to establish good neighborly relations. Iyadoo Somaliland ay teeda ku adag tahay. From its position of strength. Diyaar ayaan u nahay wada xaajood. Is ready. Si aan uga yigeena ugu beddelno mid nabdoon. How we can turn our region into a peaceful region. Sidaas ayay tiri ergeyga gaarka ah ee Somaliland u qaabilsan wada hadallada. Special envoy of Somaliland. Dr. Adna Aadan Ismaaciil waxaana intaasi ay sii raacisay. Ready to talk to Somalia anytime. Markasta diyaar ayaan u nahay wada hadallo laga dhaxli kara jaarnimo inagoo ah laba qaran oo siman. Separate independent nations. Somaliland waxba looma yeedhin karo. Somaliland will not be dictated to. Somaliland Soomaaliya ma aha. Is not part of Somalia. Kamana tirsana waxa loogu yeero dawladda federaalka ah. Part of the federal or so-called federal government of Somalia. Ayay dunida u sheegtay Dr. Adna. Sovereign country. Waxa kaloo ay soo bandhigtay taariikh hore. I am going to give you iyo warqadii xorriyadda loogu saxiixay Somaliland ee 1960 ay soo saartay boqorada Ingiriiska from Her Majesty Queen Elizabeth II oo waqti xaadir ka nool. Who is still alive today. Tani waa taariikh. Adigu ma bedeli kartid. Ana ma bedeli